السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاشن إبن قلبته ومر لبعض هودا كودا كلنتين سو دواد أصحابتي أن جعلهاي ميل كستو أجوكتانا نوض يقبتانا رجينا هيا نوض يقول وارا إذن الله وإذن جعل أصحابتي ميل كستو أجوكتان وولاشن مر كلا هودا كودا كلنتين هذا النقول سبتا سبسكرايب صار لايكسي شير قري أصحاب سا كولا وداكتو كومنتيكو هوس نوغو سوقر فكرة دانسان ولا وداكتو إن شاء الله بالله الكريم أصحابي waxaan una qarwaaya asxaabteyda aan jeclahay hayaantan waxaa soo hawada qabsaday qaniisin xasbunallahu wa ni'mal wakiil inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wallahi waan ka xumahay aad uga xumahay hadiiba aad qaniis ilaahay baa kaa dhigay ma meel fadhiisatid alxamdulilah dhahid oo masaajidka aa gashid oo ilaahay barid oo wax kasto ilaahay sameey alxamdulilah waa la dhahaaye waa lagu mahadiyaaye meela la fadhistaaye lagu faanaaye meelaha maa la fadhista yir ninkaygii baa u reexayaayo lugaha u reexayaaye maxay ahayto gabdhaha soomaaliyeed waxay dhaheen nimanka lugaha loo reexana barine asaga manaaga mise waa nin inaa lilaahi wuxuu yiri gabdhaha soomaali waxay dhaheen lugaha u reexaya raalinimada janaa lagu galaa janaa rabaa inaan gale asaga muxuu jana ku gala naagba ma aana naagtaa la yiri haddii ninkaada raali u noqoto janaa galaysaa asburullahi wa nicmal wakiil aada uga xumahay wallaahi billaah waa wax aan ka yaabo nin miyaa naag miyaa muxuu u dhexeeyaa haddii maanta adi aad naag tahay haa janaa ku galaysaa ninkaada raali u noqo diinta islaamka sheegtay ninkaa wuxuu yiri ninkaa wuxuu dhahay wuxuu yiri naaga wuxuu yiri naagi caruurteeda wuxuu yiri laga soo qaado yiri afrika waxaa la keenay dibadda u dhahay ilmiya wuxuu dhahay iskuul la geeyey iskuulka marka la geeyey kadib wuxuu dhahay iskuulka marka la geeyey kadib ilmiya marka wax loo soo dhigo u dhahay ilaan dhaqankii oo gaalada iyo waddankaasoo loo dhigaa u dhahay markaas wuxuu dhahay naagtan markay kulahaa ilmihii ay imaadaan oo guriga imaadaan ayadana waxay dhihi dhaqankiina soomaalida saan waaye diintiina islaamka saan waaye waa sax ilmaha waa ilmo yaryar haddii dhaqanka gaalada loo sheego dhaqankaasay raacayaan ilaan weli waxba ma haystaan mug haddii dhaqankaada aad tusto diintaada iyo wixida waa sax wuxuu yidhi reebaadiyadu yidhi oo dhaqanka diinta saawa diintan kiyo oo isagoo hadda la keeno diin isagoo hadda la keeno ma jirto horta shahaado ilaahay ka cabso diinteen waa diinta aan ku dhalanay waa diinta awowgiisa diinta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam soo jirtay oo ku dhasheen waaya marka waa diinta nabi maxamed diintaa haysano marka waxaan ku leeyahay horta ilaahay u toobakeen ilaahayna ka cabso oo diin oo ma jirto isib ma jirto diintan waa diintaad ku dhalatay wuxuu dhahay aan la yaab waxay tahay waa rafaadsanahay u dhahay waa rafaadsanahay wuxuu dhahay waa rafaadsanahay aada u rafaadsanahay waxaa laleeyahay buu yiri hooyada maad la hadashid ma wax u dirtid maad ka naxdi aabaha maxaan ka nahay uu yiri ayada igama naxin maxaa dhacay waayo yiri markay uurkeed igu qaadaysay ifka marabtaa mismarabta maxaa idin weyskuya bal uurkiyaa isku wareystay ilaahay baa ayadaa i keentu yiri ifkaana i keeneen ciidaa ku haystaa yiri ayadaa ciil u qaba ilaahay subxaana watacaala ka cabso ifkaan ayada kuma keenin uurkeedana ayada kuma gashanin ilaahay baa ku geliyay ilaahay baa kugu abuuray ilaahay baana ifkaan ku keenay horta ilaahay aamin inuu ilaahay jiro aamin inuu ilaahay ku abuurtay aamin inuu asaga ku arsaaqayo aamin ilaa hadda hadalkaa ku hadlaysid iyo socodkaa socotid wax walba ilaahay unbaad ka helaysaa haddii la raban hadda nafta laga qaadan karaa aaminaada ilaahay horta baro ilaahay aamin qof islaam haddaa tahay marka waxaan leeyahay wiilkan walaalkeeya oo
sheeganayo inuu naag waaye isu dhahay naaga ayuu leeyahay ani ma aqaan wuxuu yidhi naago isla mid dhigaya naaga ayuu leeyahay nina ay qabuu leeyahay gurigaan deganaha uu leeyahay wuxuu leeyahay gurigaan deganahay meesha maanta beertii xaaqaya ninkii iga maqan asaa xaaqi jiray asaa biyo ku shubi jiray iyo waxaa loo joogay xasbunallah wa nicmal wakiil walaa aada uga xumaaya qof soomaaliya saa u dhaqmaa qof islaam ah wallahi ani ma garan karo qofka waxa ii sheegan wuxuu yidhi ma barabo waani horta ma barabo buu yidhi ila iwaani ma rabo waa inaad xubbigayga saa ani jooskayga waa inaan idinkana ka heshaan jooskaada kama heli karno laakiin jooskaada adaa jooskaada ta anaga jooskeena ma ahan taas la soco marka adigana ilaaha kusoo hanuuniyaan ku leenahay waayo hanuunka ilaahay horta haayo anaga ma hayno waayo qofku rabo wuu hanuuniyaa qofkii rabana marka ilaahay kusoo hanuuniyaan kule ilaahay kusoo hadiyeeyo wallahi aada uga xumahay waxaan leeyahay dadka oo adigu taageersan oo maanta oo kolley adi aad sheegaysid dadku taageersan ayagana allah soo hadiye waayo wax lagugu taageerani maba arkabo wax lagugu taageero hana uma jeedo wada qaldan ma rabno wada qaldan qofkuma taageerayno waayo diinta islaamka qofka horaha lasoo galana aada u nacabnaa waayo diinteena waa diinta islaamka mana rabno in wax laga sheego waa jecelnahay waan ku dhalanay waan ku dhaaranaa ilaahay subxaana watacaalaha wada toosa allahna mariyo adna allah kusoo hadiyeeyo wiil soomaaliyeedaa tahay aada uga xumahay inaa wadadaas aamartid waa arkaa videogaada adoo nin cadaana u tuujinayo qoysana kayga waaye wallahi dibi doorta waa lagu halaabay ilaahay subxaana watacaala allah kusoo hadiyeeyaan ku leeyahay ma rabno wada qolo-aan inaan marno ilaahay intii wadada qolo-aan martayna allah soo toosiyo annagana allah nagu daba hadiyeeyo ilaahay hana toosiyo annagoo dhammaan ilaahay jana firdowsa allah na geeyo waana wada ducaynayaa inta islaam ah inta gaala oo ilaahay hanuun ugu talagalayna ilaahay ha soo hanuuniyo marka waxaan ku leeyahay walaalkay qaali ah nacayb gooni aan kuu qabo ma jirto laakiin waxa aan ku socota keliya aanay anficin saas darteeda macnihii aan hadda videogaas usoo geliyey waxaan ku leeyahay allah kusoo hadiyeeyo kumana nabci laakiin inuu ilaahay kusoo hadiyeeyo waan kuu ducaynayaa ilaahay aan rajeynaya insha allah bismillahi kariim waxaan ku leeyahay asxaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaashina dheglan qalajo idin leh waa idin jeclahay meel kasta aad joogtaan nabad igu waara soo dhawaada asxaabtayda aan jeclahay haddaan nagu cusub tahay subscribe saar had leegsi share garee asxaabtaas aa ula wadaagtid commentiga hoos nooga soo qor saad fikradaada noola wadaagtid insha allah bismillahi kariim waa idin jeclahay meel kasta aad joogtaan nabad igu waara